Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Banooda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan iyo qisooyin dhab ah. Banooda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad ku mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Maanta waxaan jeclahay in aan halkan si kooban uga hadalno maxaa looga guulaysan waayey la dagaalanka Al-shabaab. Aniga sida ila tahay, guuldaridda Al-shabaab waxa uu sabab ah arrimaha hoose ku soo sheegi doono. Saraakiisha dagaalada hogaamiya oo aqoon u lahayn dagaal gelinta ama howlgalka ciidan iyadoo darajada lagu siiyo qaab qabyaaladeed. Ciidamada oo niyad fiican uma hayaan dagaalka oo mooralkooda hooseeyo. Istiraajiyada, khariidada iyo qorshaha dagaal gelinta oo liidato. Musuqmaasuq, qabyaalada iyo ka dhex jirta ciidanka dhexdiisa. Qaabka loo maamulo ama loo maareeyo ciidanka oo qaldan. Ciidanka oo ku dhex jiraan kuwa aan tababar ciidan soo marin weligooda. Dowladda oo daacad ka ahayn la dagaalanka Al-shabaab oo aad moodo in wada shaqayn ka dhexayso labadooda. Ganacsato iyo shirkado waaweyn oo gacan saar la leh Al-shabaab. Dadweynaha oo aan si fiican ugu qayb qaadanin la dagaalanka Al-shabaab. Ciidamada oo dhiirigelin iyo abaalmarin ka haysanin ama ka helin madaxda dowladda. Al-shabaab oo ku dhex milan dowladda iyo ciidamada. Quwado shisheeye ah oo gacan iyo kaalmo siiya Al-shabaab oo aan rabin in ay Soomaali degto, hesho nabadgelyo iyo xasilooni. Ciidamada sirdoonka oo aan tayo lahayn iyadoo xog ururinta iyo sahanka ciidanka oo liidato. Madaxda dowladda oo ku mashquulsan howl kale sida doorasho, safar, ururin dhaqaale iyo waxyaalo kale. Qalabka, hantida, mushaarka iyo raashinka ciidamada oo la boobo ama la dhaco. Sirta ciidanka oo liidato oo aan si fiican loo xafidinin iyadoo lala wadaago ama loo gudbiyo Al-shabaab. Kuwa ka soo baxsada ama lagu soo qabto dagaalka Al-shabaab qaarkooda oo lagu abaalmariyo jago ama xilal sare dowladda iyo waxyaalo kale iyadoo si rasmi ah loo hubsanin daacadnimadooda. Garsoorka oo cadaalad daro ka jirta xagga maxkamadeynta maleeshiyada Al-shabaabnimo loo soo qabto ama loo soo xiro. Iyo arrimo kale. Haddaba sidee looga guulaysan karaa Al-shabaab? Aniga waxay ila tahay arrimaha aan kor ku soo sheegay haddii wax laga qabto, waxaan filayaa in laga guulaysan karo Al-shabaab ama cadow kasta ka hor imaanayo nabadgelyada, xisiloonida iyo horumarka waddanka. Adiga sidee ay kula tahay, fadlan hoose noogu soo qoro si loo helo ama loo gaaro nabad, xasilooni, horumar, barwaaqo iyo bashbash. Mahadsanidin. Sidaas iyo nabadgelyo.